Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal meelkaa joogtaan waa ku mahadsantihiin ay ugu xiran tihiin. Waxaan kaa codsanaynaa haddii aad naga daawanayso youtube-ka ama facebooka labadaba haddii aad naga daawanayso youtube waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe haddii uusan ku hayna subscribe na dhahdid, sidoo kale haddii oo subscribe ku hayna inaad sharekana ku dartid oo sii shargareyso si walaalo kale ay ugu faa'iidaystaan. haddii anaga daawanayso facebooka waxaan ku leenahay inaad facebooka follow inaad tiraahdo haddii uu follow ku ahaan, haddii uu follow ku ahaan waxaan kaa codsanaynaa inaad sii shargareyso walaalo kale sii gaarsiiso si ay uga faa'iidaystaan. khayrka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri addaalu calaa khayrka faacili. marka haddii aad sii gaarsiiso walaalo kale khayrkaas ay ka faa'iidaan ajir ayaa leedahay. arrin waa arrintaas. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood ahayd arrintaas. waxaan ka hadlay laba arrimood. arrinta koowaad ayaa waxay tahay waxaa jiro qol ama group ayaa jiro oo aan ugu talagelnay markii laga tago barnaamijyada waaweyn sida tusaale ahaan haddii ay yihiin muxaadarooyin iyo barnaamijyo waaweyn markay jiraan oo kale badanaa waxaa soo dhignaa facebook iyo youtube-ka. haddii markaas ahaa lahayn live iyo haddii ahaa lahayn kuwa caadi loo duubay waxaad markaas ka daawan kartaan youtube-ka ama facebook labadaas mid ayaad ka daawan kartaa. marka ujeedkaaga wuxuu yahay waxaa laga yaabaa inaad weydiinayso haddii aad groupka naga daawanayso iyo haddii aad naga daawanayso facebook iyo youtube-ka. sababta ayaa waxay tahay yani in groupka iclaamiyada iyo barnaamijyada aanu idinkula wadaagno markii muuqaalada la duubo ama live-kana ay yihiin waxaad ka daawan kartaa ama ka heli kartaa ayaa waxay tahay youtube iyo facebooka ayaad ka heli kartaan. marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen waadix ay tahay. marka waxaan idinkula talinayaa saddexdaba inaad xubin ka noqotaan oo saddexdaba aad ka mid noqoto, waayo groupka waxaan lasoo dhigaa wixii ogeysiisyada iyo iclaamka ayaa lasoo dhigaa. facebook iyo youtube-kuna waxaa lasoo dhigaa muuqaalada barnaamijyada markaas socda ayaa lasoo dhigaa ama barnaamijyada markaas la duubay dib ayaa markaas laga soo dhigaa. inaa fahanteen aan rajeynaya. marka waxaan rajeyn doonaa inaad haddii ay hadda way jiraan dad badanaa jiro oo group ku jira xubinka ah ilaa 150 way gaarayaan. marka haddii aan xubinka ahayn xubinka noqo video hoostiisa ayaa linkiisa soo dhigi doonaa hadduu alla idmo. arrintaas halkaas ugu baxo. arrinta labaad ay waxay tahay in xusuusiyo waxaa la gaaray ama soo dhawaaday magaaladan Boros. haddii aad degan tahay waxaa la gaaray ama soo dhawaaday mutamarkii sanadlaha ama kulan diimeedkii ama kulankii la qaban jiray sanadka dhammaadkiisa ayaa la gaaray ama soo dhawaaday oo hadda ka harsan bishaan hadda dhalanayso December ayaa ka harsan. December aakhirkeeda ama December dhammaadkeeda meelahaas ayuu dhici doonaa. kolley waxaad kala socon kartaan markii guddiga ay noo soo diyaariyaan jadwalka iyo iclaamkii waxa dhan waxaa kala socon kartaan. haddii aad rabto inaad ogaato ama aa imaado ama kasoo qayb gasho waxaa kala socon kartaa youtube-ka ama facebooka ama whatsapp group-ka ayaad kala socon kartaa. marka waxaan insha allah idin xasuusinaya waxay tahay mutamarkii ayaa soo dhawaaday sanadkan dhammaadkiisa dhici jiray la qaban jiray magaaladan ka dhici jiray sidii sanadihii hore oo sanadkii ugu dambeeyay noo yimid Sheekh Abu Dalxa. marka sanadkan wuu ka duwan yahay. hadduu alla idmo insha allah arki doonaa mashaayikhda iyo culimada inoo imaan doonta iyo kulamada dhici doona sida ay yihiin waa wada arki doonaa. si aad ula socoto waa inaad youtube-ka ama whatsapp group-ka ama facebooka saddexdaas midkood aad ka mid noqoto. weliba inaad group-ka ka mid noqoto ayaa weli kusii fududaanayso in markaas wax walba oo si toos ah u heshid. marka intaas rabo inaan idinla wadaago muuqaalka. waxaan idinka codsanayaa muuqaal markaas uu geliyo ma dhaho hala share gareeyo iyo subscribe waxba kama hadlo markii barnaamijyada soo gudbino. laakiin maanta waxaan rajeyn doonaa inaad waxaan rajeyn doonaa fahanteen
inaa wuxuu ahay muuqaalka shargiraysaan legiraysaan walaalaha kalena sii gaarsiisan ayaa rajeyn doonaa. waa mahadsantiisa ugu xiran tihiin halkaas insha allah way kusoo gabagabeynaya fiidiyoga. waa walaalkiin maxamed shaafici. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa inuu ballanaya kulanka xiga iyo barnaamij xiga. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.